maamulka dawladda hoose ee degmada Sheekh oo ka duulaya badqabka caafimaad ee bulshada ku dhaqan degmada Sheekh ayaa waxa ay maanta si rasmi ah u gubeen alaabada dhacday ee hore uga soo ururiyeen goobaha ganacsiga iyo waliba dukaamada waxaana agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Sheekh Cabdisalaan Muuse Maxamed iyo sidoo kale sidooyaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cabdullaahi ayaa waxa ay u direen guud ahaanba ganacsatada ku dhaqan degmada Sheekh fariimahaas oo ku aadanaa inay taxaddar badan sameeyaan maadaama kana foojignaadaan waxyaabaha dhacay marka ay gaadho waqtigii dhicitaankana ay gaar uga ururiyaan alaabada ay iibinayaan inteeda kale maadaama ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo badqabka caafimaad ee bulshada ku dhaqan guud ahaanba degmada Sheekh مسؤولينتا أيها هذا الذي وحى كم دها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هل كان ساكن يشوفنا وحويا دام صيدك أما قابت قشن كلاو تلاقي دقمة صدرك وحن كوجبينا وحويا ألعاب عضي وقت كل استقبال هذا عفتي ألعاب تصور نكسورني قابها جناس دقمة هل كان هالفرين وبنو سوتشين لها جناس تدا دقمة جود أهان halka fariin oo soo gudbinaya waxa weeyaan in maxay hayday ay ilaaliyaan caafimaadka bulshada ay waxa weeyaan ka ganacsanayaan oo waxa weeyaan wixii alaabta marka waqtigooda dhaafto ay iska ururiyaan ay meel gooniya dhigaan oo ay u dhiibaan waxa soo maraya si weekly ama si bilaa u soo mari doona faraca hayjiinta insha Allah si maxay uga shaqeyn doona si toos ah degmada inay u dhiibaan waxa weeyaan cidii lagu qabto ee dambe ee lagu qabto iyadoo maxay ahayd marfashkiisa saaran ama ku ganacsanaysa talaabooyin baa laga qaad doona ganaax bay mutaysan doonaan waxaan markaa leeyahay intaan ganaax iyo aan halkaas la gaarin insha Allah inaad la shaqeysaan faraca hayjiinta oo waxa weeyaan aad alaabta marka waqtigeedu dhaafto idinku iska hagaajisaan oo waxa weeyaan u dhiibtaan insha Allah shaqaalaha soo mari doona saakooy ahna maalin khamiisa kuna beegan waxa weeye sidii weeg laga ahayd ee xashiishka loo nadiifinayay saaka waxaan nimi goobtii loogu talagalay xashiishka waxa lagu gubay ama ku gubnay xashiish iyo wixii gasbayr dheedka kaasoo laga soo ururiyay ganacsatada degmada waxaan hal fariin baan u raacinayaa dadweynaha ganacsatada ah waxa leeyahay waxa weeyaan wixii gasbayr ee dhacay ka hor intaan lagu iman aan waxa weeyaan qaybta hayjiintu aanay ku soo marin adigu iska sii diyaari oo waxa weeyaan si bilaayo si weegliyaba iskaga tijaabi wixii waqtigooda dhacay oo dadku waxa weeyaan wixii waqtigooda dhacayna ka ilaaliya tii waxa weeyaan tan waa tii horeysay la ururiyay la gubay wixii ka dambeeya qofkii loogu yimaado isagoo miiskiisa saaran tahay oo ku ganacsanaya wuxuu mutaysan doonaa xarig iyo ganaax waxa laga doonayaa bulsho bal qabtay inay ahaadaan dadku dambe lagu qabtona waxa weeye talaabo sharafsan baa laga qaadayaa anoo ku hadlaya afka caafimaadka degmada Cabdikariim Ciise Cabdullaahi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Sheekh